تسجيلات أمناء حواء تقدم وللأول مرة صوت مع صورة لتفسير القرآن الكريم للشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan ku bilaabanaya waxa weeye waa qisadii reer banu Israa'iil. qolada marka qisadooda quraanka Kariimka aad ugu badan tahay. sababta waxa weeye simanada waxa jira waqti dheer oo iyagu ay dadka macnaha u hanuunsanayeen oo rasuul Ilaahay baa laga soo dhaxsaari jiray. Maamulka Ilaahay subhanahu wa ta'ala u galay waxa kamid ah mar walba inuu nabi dhex joogay. inna banu Israa'iil kaanat tasuusu al-anbiyaa nabi sallallahu alayhi wasallam. reer banu Israa'iil waxa hogaamin jiray dad anbiyaa ah. أنا الذي قمت بديري وحي ما أنا يدخل خلفاء مركا وأنا الحمام بوالغات الدعاء رسولك صلى الله عليه وسلم. اليوم مركا هم واحد كذا لكن مرة والله واحد جري مرجع أو سليم هو النبي إلهي باكري أو الله وحيانا وحق عدنايا. لكن اليوم أيام ما أرجع فيها كل بدنا نشري يبدل كل بدنا نشري عاد يقول يبلغ أيام فلوس شرينا وقبل شرينا. مركا روح إسرائيل سيدا والنبي يعقوب عليه السلام يجي يسوي إسرائيل. مركا النبي يعقوب من القرآن فكل شيء sidii uu masabtiyay oo waxa weeye in Nabi Yusuf alayhi salaam markii hore walaalihii ay maad ay ku rideen oo markaa dad ay socota ay masabgeeyeen halka uu markii dambe mulkigii awoodii wadankaas oo dhan ay soo gacanta u gashay walaalihii markii dambe ay yimaadeen markaa ay faray inay u yimaadaan oo cidii loo soo rabo markii la iskaxay oo qashad aad u dheertay suurtiisa lagu cadeeyay waa tuuna jaadu kama jimcin buu yiri ahlikiina wada ay ka sida markii Yaaqub iyo Dawid ay u dileen Masar Yaaqub waxa la yiraahdo xadariyay Masar dalay marka reer banu Israa'iil iyo dadkii Masar deganaa oo qadiyiintii waqtiga hore si nabad baa lagu wada joogay oo waxa weeye waxa talada maartay hayay waa Nabi Yusuf alayhi salaam markii dambena waxa dhacday waagii dambe reer banu Israa'iil xaraafeen markii boqolaal sano talinayeen bacdigeed kadibna waxa wadankii laga saaray oo Fircawn markaa yiri leeyahay inta laga qaadan noqdaan loo shuuciyay amarta laga leen jiray markaa kadib Nabi Muuse dhashay Nabi Muuse markii wuxuu yahay u yaqaanay mukhallis buu yaqaanay kii khallisay oo dulmiga iyo joogtii Fircawn ka badbaadiyay dadkii waa tii markaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala mushkil ah iyo ka baxay wadanka oo badii loo kala kaxay oo reer Fircawn markaa meesh lagu halaagay arrinta markaa xawaaray reer banu Israa'iil oo rahman qowm alladheena kaanuu yashfa'una mashaariq al-ard wa magharibaha wa ali mashaariq dhulka iyo magharibki maghrib iyo dhahr oo iyaga qaasi macna oo ka tiri jiray dalina kadib waxa dhacay markaa muddo badan oo Nabi Muuse ka dambeeyay markaa Tawraad dadka lagu maamuli jiray oo dadku markaa laga anbiyo badan markaa jira oo Daawud iyo Suleymaan iyo kulli waxa weeye min anbiyaa bani Israa'iil way reer banu Israa'iil bay u tiri jireen Daawud iyo Suleymaan baa ku jireen nabiga kale waa jireen quraan sheegay badan iyaga markaa akhbaar badan way lahaayeen iyo qisas badan bay lahaayeen quraanka meel badan oo ku xishiyo laakiin nicmada maaragtay Ilaahay uu waxa ay anbiyo marwada dhex joogeen marka Allah subhanahu wa ta'ala Israa'iila guriyadii Israa'iil اذكروا حصولك نعمتي التي نعمتي أنعمت عليكم أنا ينفقون علي وأنا ينقلي وأني أنا فضلتكم إن أنا تفضلي على العالمين عالمين إن أنا تفضلي وحلو فضلي إن النبي لا يشهد حسارها يمر الباء ومرتي النبي ودنتظر النبي لا يشهد حسارها عم بيضع مرتي إنه جامي شري حتى يبادر يمر الباء إنه مرتي عدين شري مثلا نعمة حصولك إلهي سبحانه وتعالى ينقل نعمة إلهي جلها يمهنين كأول من شل haddii hanuunka qofku waayo waxa weeye noloshii nicmadii ahayd nolosha iyo risqiga waa ku noqonaysaa shaqada ku noqonaysaa naarka ku waaraya haddii hanuunka Ilaahay barbar mariyo marka saasa Ilaahay subhanahu wa ta'ala nicmada ku xusuusinaya ayaan u farayna u jiray nafs kale siyan waxba wala yuqbal minha an laga aqbalan xageeda shafaa'a laga aqbalan shafaa'adna waan sheegnay inay tahay labayn iyo maartay darajay marka idna kullu qofku fi raf darajada wala yu'khad minha laga qaadanayo minha xageedana adlun laga qaadanayo sidaa laga qaadanayo ma xafras hadii wax ka yiraahdo waan ida ayaa laga yeelanayo yani kuwa gaalooday Ilaahay wuxuu yiri laga yeelanayo maartay la yuqbala minhu min al-ardi dhahaban bali hadii arlada midjeed oo dahaba diiban wala istabaadihi hadii xataa arlada midjeed oo dahaba yeelan hada ku furto oo aanay daayacayalka ka badbaadiyo laga yeelanayo عدل مركز حوالي واحد قف كفر أيه معناها واسدة ولا يؤخذ على قادنا منها حد عدل وحمارة وحفرشاء على قادنا ولا هم يصرون أن لا تجارين وقت مركز على النمو يكفر في الإنساء أثره حال في توسط أحد مارة درب الشيء أو إيه لنا أو قراب النمو أما صاحب النمو وقوتر علينا مثله وحوى البهديرة لا يقعدنا يصير عن بوحدها لكن هدي ورا الله حتى وقت السال لا يقعد ونسير يعني لغيه لما يلي ولا يؤخذ منها عدل ولا هم معها إيجو ماركنون صاروا فوق اللي درجاري وإذ نجيناكم فصوص وقت نجيناكم عن وسبب بابني
غير بني إسرائيل بل الله ليها من آل فرعون غير فرعون أن يسبب جاهلين إيه في فرعون أن يسبب جاهلين وذلك العنصر القبضيين اللي يرهبوا أو فرعون يكسر فيه وبني إسرائيل يقبضيين في إسلام الجنانسرين لا يقبل على وجه النبي يوسف ومصر عليه السلام كذب لو واحد يحكمك أنت واحد ينشري بقلالتنا واحد ينشري بني إسرائيل marka uu fitnaa waayeen baa ummadii dirreen markaas qabdiintii baa taabeen kaas qabdiintii ka saareen bani Israa'iil waa markii yani ka qaalin noqdeen niman boqor oo jabaabira soo baxay oo Fircawn uu ugu darnaa oo marka Ilaahay yiri in Fircauna ala fil ard Fircawn arladii ku sarmariyay waja'ala ahlaha shi'an in arladii sooyina qaybo ka dhigay qabiilooyin oo kala saaray yasrifu baa'ifatan minhum markaas qaarba ay sameeyeen yidabba Allahum arruhu dawra'i wiilashooda ويستحيي نساءهم قبلها ونولين إنه كان من المسجدين بين المسلمين كلها فرعون كانت أقدرنا بني إسرائيل خليل إنه آب إبنية أو أبابية أو وحل يرفوه كهندا وحل يرهين حكم صحة قال بني إسرائيل ساسي إلى بقالهم مركز غير فرعون يعني ساسي عذابها وأصلعنا يا بني إسرائيل بإله سبحانه وتعالى موسى صدري موسى ثميان موسى مرسي وإله سبحانه وتعالى بدأوا كالكاري وبني إسرائيل موسى بالجابيين ليس فرعون يهدي سنة كبابين نعملها وين بمركز حسيسينها أساسا اللي الوقت أن يثبت ذلك من إهل فرعون يصومونكم أي اللازمين شرين سوء العذاب عذابكم عذاب كل أي دائمين شرين وإمار اللازمين شرين والعذاب خلصين وهذا الشيء يذبحون أي جرعيين أبناءكم يلسلم ويستحيون أي نولين من نساءكم قبلهم من السبعين وفي ذلك مرة دحي سنة واحد يتوصلنا بلاء يعني السرب الامتحان من ربكم رب من حاجة هذه وعظيم الوين أنت حسوس السلاجة إلهي إذا كنت زي أو الرسول إن بدبادي إن يصدري أو هنين في الله يسوي رفعان يتبدبادي أو معنا يتفق على يده رسول سبحانه وإذا وقت رسول سبحانه فرغنا بكم عايزين سحني بكم إذن البحر بدي عايزين سحني ومعه وضعين في يبحني ومرفع أسيب بكين فأنجيناكم عن بدبادي وأغرقنا عن معشوني أو بيه كقرقني آل فرعون غير فرعون وأنتم إنكم تنظرون سورين يأرقي يسوء بعضين حياتك إذا تسوي يجينا إلهي بدأ كقرقني رسول سبحانه نعمه مركي نيمة إلهي يقول إنه معناه كبح وودك مصر واللي يري أبي أنت المؤمنين تعبحها إلهي يروي ابني وحل الشيء فرعون إنه مثل مجالين شو غنطط أكادري مجالين شو وحد ضد جناية بأسة كل مياه ودك مصر لودوين بها بغصيين ده فأرسل فرعون في المجالين حاشرين مجالين شو حضري حاشرين لمن فوق المياه بكسينا فأسي وحي لها يندل إن هؤلاء لسردين في القليلين هو وحي لها الموسيل لفعلاه وجماعة يرمى لسردينه وكوحنها يقللون ير وإنهم لنا لغائبون ونكون العريسيب لها معه وإن أننا لجميع وحنا يكون وحاجرين بالتين هدنا فتأدب بين هدنا بالتين وهو يتم بنا مركز إلهي وحسن ساري مارك وحي أن نعمل كل ولايين يدوره دي يكونون سيدي على وحي الطريق مركز لماذا جماعة يكون مغنين دالير وحي حاكم مسألة بيه عليين فرعون يعيين تسينا فهم غير فقال أصحاب موسى وحي إنا لمدركون إنا لمدركون أنه وانا نسوق ربيعا قال يوسف كلا إن معي ربي سيهدي من فضله إلى الشراء ويهنون يدي مركز إلهي وحى أمر بدأ أن يقول السوء بدل على الله فحن وتخيبات له فانفلق فكان كل فرق كالضوض العظيم بنع البوحة نوتيه بوردر مركز يوحى للبورها بيها أدحوره وضرعه أيوتي جدا بني مركز بني إسرائيل غير فرعون لما يسي بني إسرائيل مرة يسيس في هذا المركز دحل الجوان غير بني إسرائيل نسيت الدين أيها إلهي غرقي مركز فرعون يقوم مركز يمكن أكثرين إنسان بني مثل نعمة حسوس والله وإذا وقت يعني حسوس وعدنا موسى عن فرب العنى 40 ليلة أفرتم همين وإن موسى نفسه كتاب في مركز وفهم لها وضدك وخبر لها بني إسرائيل أيها إلهي الله سبحانه وتعالى كبر لمن موسى أفرتم همين لو مركز لقم غنى وموسى سمعنا أيضا صدن همين بمركز المسيحي صدن في إله وحيري ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فهم بأن أغدر نيجا للسنة وتم ميقات ربه 40 ليلة أفرتم بمركز المغرب الله مركز صدن بها مركز بني إسرائيل مركز تحسدين موسى يا وحل يروح أصبح من سودان هاي سامر الأوروسري وسني أها مركز وحي أسمي دي أي الذهب يسمي دي معناها تمثال أو مثالة وصنم أها يسمي قاب دينه ومركز وحل يدرس أكثر بس مارسي دي الوحية أي يسمي مركز يقول هذا إلهكم وإله موسى قالوا إله موسى وموسى وإله وإسدفون إله ما كان به فكان موسى نفسه وقال ربنا بعين بني إسرائيل مصر وكل ذي وكتب الجنين مركز ضد تسعى عن إيمان لها ومسلمة تسعى عنهم من حققاتنا وفكرين إله يصور من قوم موسى أمة
يهدون بالحق وبه يعدلون waxaa ku jiray qeybka misaal yar dad xaq ku helnaa kuna cadaalad faraya toosan laakiin dad badan oo waxa jiray macnaha caadadii hore iyo shirkigii iyo xumaantii ay ku soo noolaayeen yani weli qalbiga u mar allaale markii badda laga badbaadiyo soo admareen dad asnaan caadadii qaar ba waxay yiraahdeen anagana ilaah noo yeel mooso ijcal lana ilaahan kama lahum aaliha markaa wuxuu yiri innakum qawmun tajhaluuna inna haa'ulaa'i mutabbarun ma hum fiihi wa baadilun ma kaanu yacmaluun qaala agayra allahi abgaytum ilaah micina allah indan ilaahi soo dhigaado saas marka uu u saxay oo haddana xaqi uga cadiyey mar allaale markii uu ka tegay oo kitaabkii doonayna waxaa la yidhi diligii markuu u sameeyey ninkii saamiriga ahaa diligiiba markaas caabudin dad aan caabudin baa jiray nebi haaruun iyo dad mu'miniina oo aan caabudinna waa jireen markuu dabcay haaruun inuu ka reebana naftiisii u baqay inay dilaan buu ka baqay saa wuxuu jiri muuse la soo dhowey muuse inta ka imaanayo faraashadaa sidaasa marka muuse u soo laabay marka xusuusta la yidhi waqti waacadnaa aan ballanay muuse aan kula ballannay muuse 40 leylatan 40 habeen ثم اتخذتم سجن أبيلتين وسمستين العجل جلي أبيلتين من بعده موسى مغنانتي في يعني انتم مغناء يعني تباشي أجل سمستين رسلي وأنتم حال آتين مركا ظالمين وقوة ظالمين آتين وكفرين وكفر الله في آتين ثم بعدنا عصونا عنكم وانين عسنين لأرثها مركي أشتا والسنين وقرسين إلى اللمين فلما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين بهم حدثنا الله نودن بلاسن أمام حريصا في خسارنا هاي النبي رأيه وأستحسن وتوكلا مركز واحد الخسارة أرجع ليس بكي واحد اللي يريد إنه يسبلان بالعام وضد كسفنا وأن أرسل قال له عسلين إنه يكون إنه يسبلان يا العام ثم عصونا عنكم من بعد ذلك أرسل كذب لعلكم تشكرون في الله أوسفلان وشاكرون إنه وسام بإله هدنا إن أحسيد اللي يقول قال له طبعا مركز تكون إله واجن أحسيد أظهر إسرائيل وإذا وقت فسر الآتينا عن سنة موسى الكتاب موسى عن سنة الكتاب عن سنة والفرقان عن سنة لعلكم تهتدون فيها وهم مثال مركز فرقان فهل إلى هذا كتاب الله دون فرقان معناه ثلاثة حق إبادة ثلاثة فرقان بل إلى هذا وحال الله لو في لدونها يو بناء آدم كل ما بأهل أو السفل العشان فكن شيء الله على الكتاب دون لعليه كذا يمر كتاب الله إيه الفرقان القرآن هو فرقان التوراة هو فرقان تابع الله روحه الفرقان ويحق البابك أيك العدونية تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإليه واحد ما في خير في سبكي أو بركوي ربي كتب في فرقان يعني أبوه في ومحمد صلى الله عليه وسلم مرت وقت فكوسة ليري آتينا عن سنة موسى عن سنة الكتاب في التوراة والفرقان والفرقان عن سنة ثلاثة حق الباب الثلاثة لعلكم تهتدون في أيها مثال وقال الله يرى المسمر في كتاب الاسمين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعدة الواح ظهر بقر نجالي شيء والباء وانا نكسر نجالي معنى عبدين بانكسر والله يعني هو البالوب يعني وتفصيلا لكل شيء وحوى البنا والله يصلح عاديا وخذها بقوة الفوق وقد تبالي رسالتها مصيصة الوسط دارم وأمر قومك يأخذوا بأحسنها قومك أنا وحى أمرتها إني أحسن تكرع عنه كتابك عن الرائن رسولي وقيمت أن على الرجال وحول كتابك عزائمت إن مارك الإلالية وأرمه وين ألق إلهي أمره إلا إلالية يعني تنسيق في الصلاة الزكاة الحج الجهاد في أرمه وين وتساليس إلهي أمره إلا أدو إلالية الآد وقعتان إلى الأمر فخذها بقوتي وأمر قومك قوم كان أمر يأخذها قعتان يحسنها أحسن تكرع عنه في أونك أرمه في أونك بين إلهي سعليها لقرع عنه أنت المسلمين على كذا معناها واحد كثيرين أهرنت إلهي إلى سعليها وكمان كثيرين من اللي يجري مثل ياسم فواحد المرضى دائما إلهي ما أهرنت خير شيء وناك شيء وأودي بجانب يسارعون في الخيرات الإلهية واحد يقول له ريان خير على المرضى الوصفين ويحل هذا وكانوا أحرص الناس على الخير واحد يقول بس أود بجال بلن ماركي خير فلس واحد يقول الخير يهي إلهي سعليها ويفد إلهي عبيد الله إلا عبيد فيه عدو أرسل واسلات وقت خصوصي عليه قال ويري موسى يري لقومه قوم سيئري يا قوم خيئوا إنكم إذنكم ظلمتم أنفسكم نفسي نبا ظلميا باستفادكم العجل يالسد عجل أبيالسين والعابدين نفسي نبا ظلميا وشركي يجعل نبا سنسين نفسي نبا ظلميا وطوبوا أنقضى إلى داريكم خالقكم أنقضى هبدين يعني خالق وحوي الذي خلق ويواتي وحوري باري إنه وحوي الذي برع سوى حوري وبرأ البارئ وهدلي سوى حوري وعوري مرت إلى بارئكم وإلى خالقكم وإلى ربي المال تبقى بس النقطة
فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا دلة لأنفسكم نفس الدلة وعقاب وحا لوغا دغي وحي اي سميين كفاره لوغا دغي توبتنا اللي مركا waxa disaan bal nafsiin ذلكم خير لكم تابع ينصر بدن عند بارئكم يعني الله أتي يعني خالقنا أتي كذا خير بدن فتابع عليكم مركا الله توبدي إنه وفقيا تابع عليكم إنه هو التواب الرحيم الله وحوي هو التواب وكتب أقبل كبدن الرحيم ورحمة بدنوي marka sida ay isku dileen waxa way hadallo kala duwan baa laga wariyaa oo lagu fasiray waxa la yiri waxa way qof kasta qariibkiisa ninka qaraabada ay ahaayeen soo dilo oo macnaha sameeyay dibga caabuday kuwa dibga caabuday kuwa ku israarin oo yiri waa sababteena ilaahay naga aqbalay oo sababta idinta ahaa oo shirka ka sababteen kuwa waxa la kafaro waxa laga dhigay marka inta baacinta ay toosnayd inay dilaan kuwi kale oo dilaan ilaa amar kale ka imaanaya dilku waa socday markii dambe waxa laga tigay ama waxa la kala yiri laba safar inta laga dhigay kuwii maartay dibida caabudi iyo kuwii aan caabudin baa la isku fasaxay inay isdilaan sababa waxa dhintay shahiid buu ah sidana waa leeyahay kulli ciqaab adag oo noocaas ilaahay subhanahu wa ta'ala fara uga dhigay way qultum waqti xusuusta waa yiri xusuusta qultum atrahdeen ya Musa lan nu'mina laka rumayna hatta nara Allah jahratan ila an ka aragna Allah jahratan si alaaniya ah oo muqaal aan u aragno وإله سبحانه وتعالى ذاته في كحجة خلقه ما أعرف كلام أدينك موسى مركو يري ربي أريني أنظر إليك الله أنك أركو مركو يري قال وحي يري لم تراني ما أعرف في بالي لكن آخره حوي ولا أركه يا الله سبحانه وتعالى في حديث صحيح أي تسوى أرسي ورسولك يري معناها الله ولا أركي دونتان إنكم تترون ربكم كما ترون يعني الشمس ليس دونها سحاب هي قمر عن كسك المارس الضرور كذا ضيح وأركيسان وقرح وأركيسان أياد الله واركي دونتان بالنبي عليه الصلاة والسلام حديث بدون باتاس سؤال أيضا اللي قالوا مثل الله الله إله يرسل إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الله وعلى حجاب دونا لي إمام الشافعي وحي واحد دليل أصاي مركب المؤمنين إلى اللي حجاب واسعة واحد معناه إيه اللي فيه وحو ما رأي وسع لنا أيام بمثل جنوب الكلام والنظر إلى وجه الله وجه الله في ربع يصيرنا يا أرسع أيام فوحوا البحر اللي فيه وحل يتفق على أيام وإذ قلتم وقت حسب لي وقت قلتم أسراهدين يعني خصوصا وقت أسراهدين يا موسى لن نؤمن لك كرمين منه حتى نرى الله جهرة إلى أن الله كأرنه على نيته ثم قال فأخذتكم مركة واحد الغوثي الصاعقة سمجي يسوح السيد صاعقة وحوى البوهاء إلى نفس بن آدم يعني أما جلها يا مصوحينها يا صاعقة أما قيلها وضطة أما ضبها وضطة وحوى البوهاء إلى ويمر معه إنسان في غالب وتأود بغن مركز صاعقة إلى غوثي بالي وأنتم إنكم تنظرون أركي بالي سيرني ثم بعدنا فعشناكم والإنسان ولأن نفسي من يسر إلي من بعد موتكم بمشهد كذب لعلكم تشكرون شيئا وشكرا معناها مركز صاعقية أي بشيء أو وحلي ولا دعين أو ميد مقلين حتى إله سبحانه وتعالى وسلوا لي لعلكم تشكرون شيئا الله وشكرا وحسن وحوي تاريخه وهراء حشو مرين نعم كان إلهي إذنك يعني يكون بحسوا حتى الله ينا عابدان الله أمرك سقاطان ويللنا وحن انصهر لي عليكم كرسينا الغمامة يعني ضرورة بعد انصهر لي ورحم يكشف الشيء ده لي المساوى إلهي سبحانه وتعالى ضرورة أسلي يعني بالقر من عذر ولي سماء صوت ولي وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا وحن يسد الجنة عليكم المن والسلوى يسد الجنة المن وحوي وملف سمار أما وحوي ملف تصوير صرف وخلاء وحنا عانوا جيلها يتبقى سنة هيان جيلها يكتب سنة يوم والسلوى أنا وحوي وعشين بروح إلهي أسخري ومارك آد أبلا وعن كعرين ومركا يستقل الجيل المطبعنا مركا إلهي وعنا أغد جيسان وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم عنا بالي طيبات أن يكون رزقني والله إبني معناه والله إذا مباح والله غدي والله بني نعم إلهي عنا الله نعبده وما ظلمونا ما يظلمون ولكن كانوا أنفسهم وحي أهيان بالي أنفسهم نفسهم يظلمون فوق ظلمنا نفسياتهم يظلمون ينبغي ظلمي وحوي وحق وليس لها على دين ومالك اللي marka dulmigu wuxuu ku yimaadaa saddex qaab macnaha dulmul abdi li rabbiga soo dulmiya adoon iyo dulmul ibaad adoomadii la dulmiyo iyo dulmul nafsiga la dulmiyo saddexdu way dhacaan marka dulmiga Allah la dulminayo waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaq buu lahaa maadaama insaanku uu abuuray oo sanaa Allah uu yahay insaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo abuuray oo samciga basarka iyo aqliga u yeelay haddana waxa Allah leeyahay xaajaadka insaanka ah u baahnaa haddana Ilaahay uu u diyaariyay oo waxa Allah wuxuu u baahan yahay Ilaahay si وآتاكم من كل ما سألتموه إليه
wax Allah lagu u baahnaa hadana Allah subhanahu wa ta'ala u diyaariyay insaankaas waxa weeye ilaahay hadana u kala bayaaniyay wadada xaqa iyo wadada marka baadilka kala cadeeyay Allah subhanahu wa ta'ala marka xaqiiqo wuxuu ahaa inuu cid kale oo saxaabadiin adoonka waxa yeelay cid kale oo iskala siiyo ama jiro Allah abuuray siiyo marka xaq Allah ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an banabi alayhi salatu wasalam adoomada marka xaqa يعني الله وأضمن كل يهي وحوي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الله آياته وفيه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بل حق الله يسار حق مرة في الله سبحانه وتعالى ظلمك لظلمنا يوى شرك خلقه فقال الله سبحانه وتعالى واشرك له أما وحيابي وحرمه وكبائرتها مرة الوضع وحوي وظلم مرة ظلمك أضمن لظلمنا وحوي وأضمن في أليه نفسي فيه أما مالكي فيه أما إرجي في حد موي يعني أما تيجي في أضاعينك أما فاقد فرنسا أما مالك في وحق اللي حق إليه يسوق إليه بالقاعدة في حق دري أما مارك واعي أو شرفي في مارك النار ودعوي وحماس في حمام بس خيرتي وحصل وحوي مرك وظلم العباد ويا ضم إله القدير مرك ظلم يا مارك الله أضام في ظلمه وجب حياة وتوكل إله وتوكل وبريه إله الوعد فدل بهذه وتوكل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إليه وحنا هنيك أفرد بدن ودافد بدن قصي توكل مرك إن الله يغفر الذنوب جميعا إلى الذنوب وما ضعفها يا بلد جل توكل مرك الدنيا ظلم الأسوين وشرك جاءه وحلو رب حياة وأيوه الله لا وصل نقضه ولا وحده أو دبنا على وصل إليه ظلم الأسوين مرك الضوء لا يجي لين وحوي يدنا الله لا وصل نقضه إن مرضا بعد ما يجي لظلم مرك الله وانا أدون كان حقي أثقة فينا تجديه أدون كان حقي أدون كان أثقة فيه ويا أوجد إنسان مارك الله دهن يقول روح رجل من كان يعني أنتم مظلمة يا أخي قصدي مظلمة هيستغل أو ظلمي وح وكبرني ولا لك حاجة في الشران هيسحل على يومي أنت الإمام بين المالين عن درهم يدلنا في خلق الدين فواحد على خلق هذا هي وحسناتك فقلت عن حق إنسان كوسوح وحسنات في على قادمه وح عبادات كل شيء ورنها بيئة كثير وجد مارك الضمير الإلهي واحتساب ولي حمين ولي دعوة ولي واحد عبادات غير واحد ويمارك هذا والسارة يعني ميزان على السارة بس على السنة هو سيد الرسول صلى الله عليه وسلم قرنسا المفلس كمتك عن يجي غصة مفلس كعيروبين قرنسا وحيره وحاولنا قلنا مفلس كغصة الذي لا مساعة له لا مال له ولا مساعة مال مساعة غصة عنها يسوي مكاسو سيد الكاس معنا وحاولي غصة لا إيمان دون عبادين بغان الصلاة يصون عبادات لا إيمانية مرتابة هذا نوم إيمانية يسوي غصة جدادي أو غصة دلي أو غصة عاريب وإيمانية مرتابة كان حسنات كسو حلقات سينية كان حسنات كسو حلقات سينية كان حسنات سينية حسنات كسو على قدر ما يسنى يابير يسوي ولي حقوق الله marka hadana ila dambiga weyn inta la soo qaaday soo lagu daray kuwi dhimana dambiyada laga qaaday soo lagu daray waxa soo haraya baa leeyahay marka dambiga banaadinka marka naarta lagu diray hada huwa mithlu barkii saaka ayroobina marka aad in la soo ilaaliyo marka aragta qofka bin aragta ilaalsado oo amalka simaar ku sabri inta oo ciidada sameeyay dadaal isleeyahay haduu ku farwado waxyaabo kale oo xuquuq kale oo insan ku jileeyo waxtar ظلم يسلنا واحد يتحارنا وظلم أضاف ومارك نفسي وظلمنا أو واحد نفسي فأخذه فينا يسوي كذي لكن لك أقول أو مارك الشرك إذا حتى ضد مرت السميان ولا ليه حق الله في مارك يسوي بسويين والله يظلمين ليه إن الشرك الله ظلم عظيم إله يجري طب نبي وحوي الله يحب جاري معي وح الله جاري مثلا وحوي إنسان كثير يظلمنا ومرك والله مارك عابده وإله غير تعبده وحوي طبعا بالعذاب يا الشرك نار خواري إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إلى الجنة وتحرم الجنة مركب وما ظلمونا إليه أننا نود الانزير إنت سوى إله عبيه وأيان وشرك سميان وقال لما أي سميان وحوين صف سميان الله ما يظلم لي يظلم لي هاي اللي يشتون غني حديث بن آدم سنة وحل الغضان مستقيم الغضان أو غفت وصف غضب من قلبي طول الإنسان إله الملك يسمد يجينا أيام وحير مصمد رأيان هذا كل يفجرين الغضان النساء وصن أي قلبي طول الإنسان إلهي المغفرين في حل حيث ولي يسرى الناس مركب واحد ظلم إذا فمعنت لسمينا يقال لنا يقول إنسان نفس إنسان كم يتصل أو إنسان شو بختاره وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم نفسه يظلمون بالمين ويظلمون وإذ يخطف فسبا وقلنا عن ادخلوا جل هذه القرية قرية جل وكلوا عنا منها حيث فيكم ليل الله لم يسد دونتان حيث فيكم ليس دونتان فعنا ذلك رغدا يعني رزقي وواسعة وادخلوا الباب كان سجل المجالي سجدا إليكم سجدتم ووحلي وإليكم سجدتم بالغولة والسجود والله عبر كراه معناها بعض ضمن السجود لا عبر معناها إلهي واحد سجدتم باليكم في ورن ولله السجود ما في السماوات والأرض بأسجد فيه وحل قولا إلهي الأرجع فيه والنظام في إلهي يجي فيه الصعدان
فاسأل الله ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشمس بني الذي وجه وسط جانب الجسد فيها يا بني مركز الجسد وحلا عبرها طاعة ولا عبرها مركز ركوعنا وحوي يدنا وعبادة وسجود وكذا مركز وحلا يري صلوا باب السجود الباب الجرا يدوم سجود كل وحلا ولا يدوم ركوعا ومارك الله سبحانه وتعالى نصير وقولوا وحنا كذا مثل جلسان وقولوا حبة لها معناها بالدعاء يعني تفكرنا الله بالدعاء في دينه جل وعلا نغفر لكم ونعفنا وأسرنا لكم من خطاياكم وقصف إنه روي تعفينا وسنزيد ونؤذي وجننا المحسنين كل محسنين تأهيوا أن قصف لهن درجات كان فرق علينا وش قفل أنا قفل اللي قفل هذا قريبا مس واحد دشان يمكن السجن وأنا قريب ما نعمل بدنا إيه قال وكل ولا كسان بل يفسر يدور الغد فبدل وبدلين ذلك الذين ظلموا في ظلم سمي قولا قول بسبدلين غير الذي قيل لهم كل غير أنا هين يعني فبدل الذين ظلموا وسبدلين ذلك الذين ظلموا في ظالمين تها قولا قول بسبدلين يعني قول في الفريق وهي سبدلين قولا غير الذي قيل لهم أنا هين الذي قيل لهم غير فأنزلنا وأوتوا بكلمة مرفعة وهنكسوا بكلمة على الذين ظلموا في ظلم سمي وأمر في إله ثلاثين كذبا عذاب ومن السماء كما يكون من بما كانوا يسبقون كفر أي سنين ينذر ضد الصحابة وحكوف السرين وحال يري سجود فقلاء أو إذن أورناها يعني حبة ودندلات الله ويدينه مركبة يحكوف قلاء عند يري يوصل فوق أنا يا مار سلك أنا يا أولها دنا حبة له معناها بدر ويدينه ليس دندلات اللي يندها وحيلا يندل يري إلهي بدر ويدينه وإذا وقت فسق يستسقى وفاب ويديه وراد دلبي موسى وراد دلبي لقوم فيه استسقاء وحوي وضلبوا المارك سقاء فرد لدلبوا أما ديال لدلبوا وين إلهي إنه وراديه سقاء ووراديه وين استسقانا وحوي ورادين فدلبوا مرك استسقى موسى لقومه قوم فيه وراد دلبي ذلك الله هو يديه إلهي إنه بيسيه فيأتي واحد لغسوه فقلنا وحن كله تدرد عساس الحجر كل فوق اللي أساها الحجر رجحها يعني بور قرأة هي اللي يركض فوق شابيا فانفجرت منه واحد كسر برقوي اللي كسر بالله 12 عينا لا يكون إلى بس بالله قبيلة بني إسرائيل بواسطة سنة لا يكون في لبها يعني ما دام إسرائيل ذرية شيئين لا يكون في جيل كسر عنه لا يكون قبيلة هاي دم مركب واحد كسر بالله اللي يري 12 عينا لا يكون إلى طب عالم هو قرتين بني كل أناس القوم والبلد واحد إيجابين مشربهم ليس تعدل هايين واقفين معناها من قم بالي يرجوها إلهي في بيو اللي استقبل سنة هاي اللي سحر يرجع ودرس عن كفر الله هو بيو واسع قوم والبلد إيجابين ليس تعدل هاي اللي سهلين فرص اللاقين كلوا عنبا ليرهس إلهي في وها المن والسلوى واشربوا عبد بيها إلهي يد الله ولبضوا بيهين من رزق الله رزق الله أيهين ولا تعصوها نفس سيدنا في الأرض أرلدا وحمانها لدح مرينينا مسجين حالاتين هو أرلدا حمينية وإستاذنين سأسأل الله تردار معناها نعمين في إلهي أقلي وحتى نوصل ولوصل يدي رزق وحل في معناها يقول الثانين المن والسلوى إلهي سجدين فيه وحل إلهي استشغل الوضع لاعي ورحمة فليسين وحوي وبالوهري وضللنا عليهم الغمام إلهي كذا أيوة لو قلنا إنه يجي هدنا ملح عويس إلينا وحبرا عمنا عن فواء كلمة مصر كميرا هل علميا نمرض ومارا فرسوينا وحكا عن دون النبيرا وإذا وقت حسوا ليرقلتم عشراهين يا موسى لن نصبر على طعام واحد فنصبر كرنه على طعام واحد العنة كلية قرص إذا متعجنان كرنه فادعو لنا ربك ربك نوبر إلهين ونوي دي يخرج لنا هنوصب فيه مما تنبت الأرض وحياها الأخصوصة وحكم لها هنوصب فيه من بغلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها جيدها سنوصب في ربي رين الله وانا جينو وضدك عنان ولكن مركي الله في ريوحي لسي أنو دوين وكدر جوا فيه بغلي وحلي رضا وحلا يسي مارك عن لهين ساق لهين وجيد والبان شريد لهين ومعنا خضار جيدها خضار صوتن بالسيئة بقول بليها عربي أو بغل مركز خضارها نوصب ريراهي وقفائها قفائنا وحا ويسونا جيدها خضارتا أمسا ملا والله عنو ويسون وفومها فومتنا وحا ليرو واسونتا وحا كنو اللي يري وقمت جاء ليري معناها لسا بركة ليشيه وبركة لغاسة اللي يوي كثير كان نوحي ليه واسونتا وعدسها يديسي وبصرها يبطشي بكلبه قال وحا كيرا تستبدلون ما واحد كبدل نسان واحد بدل غالان نسان وقالان نسان بير الذي هو أدنى فيه فيه وعنعان فيه فيه بالذي هو خير فيه خير قبل وناكسنا وإلهي فيه يندو عليه فيه ومعنا نفقد بالنعام نعيسان وواحد قالان نسان بير نفسي يسكن فيه
halka marka iyagii baa la barayaa marka macnaha khalaqyadooda loo sheegayaa isagoo caqli yar yihiin baa la siiyaa laakiin ma aha in la caayayo cunnada ilaahay soo saaray oo macnaha baqliga iyo rasaaga iyo fuumiha iyo cadasiha iyo basaliha in la caayayo maaha oo cunnada waxa weye nabiga calayhi salatu wasalaam waa kii la yidhi ma caaba rasuulullahi sala allahu alay wasalam dacaaman qad rasuulka allah weligii cunno wax kaga siiyo sunnada nebiga ka mid maaha cunnada wax laga sheego si kasta day noqoto ma aha in la yidhaahdo waa cunnadu waa xuntahay casida waa xuntahay iyo waa sidaa iyo ciid bay leedahay waxaas uma wanaagsana rasuulku waxaa la yidhi ma caaba rasuulullahi sala allahu alayh wasalam dacaaman qad weligii cunno wax kaga siiyo in ishtahaahu akalahu hadduu u bogo baa la yidhi waa cuni jiray wa ilaa tarakahu haddii kalena way iska din jireen laakiin isagoo cunnadii wax ka siiyaa weliga lama araggan xayl cunnadu waxa weeye waa nicmo ilaahay iyadaba haddii intaaba waxa weye haddaan ilahay kusiin meelaa u doonto ma garateen maaha oo dadku marmar baa inay geedaha daaqaan xataa way ku kaliftaa caleemaha cunaan haddiiba marka ilaahay cunno ku siiyo cunnadii marka inaa cayibin hantiis maaha laakiin hadda waxa weeye cunnadii inay kala fadli badan tahayna waa aayaddu waa ka muuqataa oo cunnadu laba cunno inay kala fadli badnaan karaan xadiiskana wuxuu ahaa rasuulku yidhi fadlu caaisha cala nisaa'i ka fadli sariidi calaa saa'iri dacam caaisha haweenka waxay kusaa yidhi inta cunnada hilibka laga jirto cunnada kale marka cunnadii waa kala fadli badan laakiin xaqirid iyo cunnadii in wax laga sheego oo marna ma jirto macnaha adiga hadday ku anfacdaan waa la qaataa hadii kale isku dhayo markaan saas kale waa bayaan iyaga la baraya cunnadii ilaahay idin siiyey inay idin khayr badan tahay oo idin nafaqa badan tahay ilaahay idin siiyey taa inaa qaadataan loo baahnaa markaas waxaad ku bedelanaysaan wax ka hooseeyo ihbidu mitran dega buu yidhi mitr marka mitran marka laba fasir bay leedahay meeshan mid waxa weeye waddan masr la yidhaha jira waa mid waddanka aan ka safeekeynayno fircoon joogi jiray haddana waddanka weli masr baa la yidhahdaa marka waa meeshii ay kusoo duureen oo lagu dhibi jiray oo wiilasha looga dareyn jiray oo silac ay kusoo marteen meeshaas waxay ahayd meel khudaar badan tahay marka meeshii ku noqda oo waxaa la xusuusinayaa xayaatadoodii hore oo dulinimada ahayd oo macnaha ay markaa waxaas ku cuni jireen ayaa la xusuusinayaa oo orda masarkiina ku laabtay maar khudaartiina orda cuna taas waa la yidhi tafsiir kale waxa weeye misri waxaa la yihahdaa siyada beledka la yihahdaa luqadda carabiga beled walba waa misri sabciina amsaar baa la yihahdaa amsaar waa magaalooyin misri amsaar sabci waa amsaar marka waxa weeye waxa kan aad dalbaysaan wax dhib badan ma ahan helidiis ee waxay ku xiran tahay idinkoo misri degan meel amsaar magaalooyin kuma idinka degaan ayay ku xiran tahay khudaartii waa iska taallaa beled walba marka wax maahan macnaha aad dalabtaan cunnadiinaana idin wanaagsan ilahay idin siiyey saas kale weeye atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr ihbiduu misran fa ina lakum waxaa leeyihiinaa la yidhi maa sa'altum waxaad dalabteen oo su-aalateen waa ka helaysaan bal waduribad calayhim waxaa lagu garaacay baa liyi korkooda adillatu dulinimo walmaskanatu iyo yani liidash surida waxaa la yidhahdaa tendhada marka la dhisaya carabta waxay yidhahdaan yani daraba alkhayma tendhadii u garaacay ilaa dhafooyaa geesaa lagu garaacahaya waxa weye xarbihii lagu xirxiraya marka tendhadii waa la garaacaya macnaha garaacid bardi wey marka iyagii waxaa lagu daboolay waaye lagu kor garaacay oo la hooyey adillatu walmaskana dulinimo iyo maskana maarata liidasha baa la hooyey la saaray ilaahi subxaana watacaala wuxuu ka dhigay ummad dulaysan oo marna aan suldaan iyo awood iyo sharaf aan yeelanayn waba-u waxay la laabteen biqadabin min allaahi carabay la noqdeen oo min allahi allah xaggi ka ahaatay say la noqdeen baa ummad dulaysan adduunka lagu dulaysto oo bani aadamka duleeyo oo cara ilaahayna raacday baa laga dhigay baa dalika kaana waxaa keenaa layidhi biannahum yani sabab ah yani annahum iyagu inay kaanuu yakfuruuna inay ku kufri jireen biaayaatillahi aayadaha allah bay ku kufrin jireen wayaqtuluuna waxay dili jireen annabiyiina nebiyaashii bay dili jireen bigayri alxaqi xaqdarri bay ku dili jireen dalika kaana waxaa geeyey baa layidhi gaalnimadaas intaa la ego weyn oo aayadaha ilaahay la diido iyo nebiyaasha la dilo waxa gaarsiiyey baa layidhi sabab ah bimaa casow cisyaankii markooda hore ay caadaysteen wa kaanuu yactaduuna iyo xadgudubka sameeyeen marka dembiga yar wuxuu ku geenayaa dembi weyn markoodii hore waxaa weye aayada khilaaf iyo dhacdhac bay keeneen cisyaan iyo ictidaa waxaa ku xigay markaa nebiyaasha in la dilo iyo in maarata aayadii ilahay lagu kufriyo natiijadiina waxay noqotay markaa in lagu daboolo maarata adillatu walmaskana oo ummad dulaysan ilaahay ka dhigo marka aayad kale ilaahay wuxuu yidhi waid ta'adana rabbuka layabcasanna calayhim ilaa yowmi alqiyaamati man yasuumuhum su-aal cadaab ilaahay wuxuu sheegay baa layidhi iclaamiyey banu israa'iil inuu usoo diri doono cid maaragtay dhadhansiinaysa su-aal cadaabi cadaabkiisa xun ilaa iyo yowmi alqiyaama weligood marka mar walba waxaa lagu soo sallidi jiray ummad baadciso oo aad u filcisaa lagu soo diri jiray waxaana waxa weye iyagoo ilaahay markooda hore aada ugu nicmeeyey nicmada ilaahay kufri ku bedelahayay bay ahaayeen taariikhda marka inta laga xuso waxaa ka mid a oo aada loo sheekeeyo nin la ohan jiray baktinasar oo la ohan jiray oo baabiliyiinta ahaa ciraaq ka yimid oo inta qabsaday qudus iyo banu israa'iil wuxuu ka dhigay wax la laayey oo dilay intii kalena waa kaxaysay u addoomaa oo ciraaq uu geeyey zaman dhan bay waxay degi jireen ciraaq joogeen oo duleysnaayeen oo boqorkaas addoommo u ahaayeen marka ilaahay baa ku garaacay dilinimada marka iyagoo gaalnimo iyo xumaan maaragtay ay deen waayeen baa isaga lagu ciqaabay kitaabkooda xataa yahuudda ay ku dhaqanto oo hadda ay yidhahdaan talmuudka u yaqaaniin waxaa jira mid la yidhaaho talmuud oo baabil
وهذا باب الأيتوبيين بقرين ومرض صومنا تعرفها وحكوا في شيء هذا ضدك في مرتي كريستيان على مسارها وبقرصيد الروم إذا لو حاول يوصيه حتى أدلو باب يلوقع ومر لا يلاقيهم بالجدي أدلو باب يهودي ومارس الأدلو باب الجلس اللي يسرد وحكوا في وحاول مرتي الإسلام الصودا هريني صلى الله عليه وسلم جزيرة العرب صدق يقبلوا بجنيد صدق وحاول ولا بابي هو مارس وصلنا وحي أهين كوي خيبة لوقع فيه ومركا أدومه لا جدي بيراه فلا اللي iyagana waaga cumar bin khadaab laga qasiyay jidada carabna laga saaray laakiin laba qabiilo kale ay luqaad waxa weeye inta magaalada laga saaray meel degan meesha ilaahay cudurro u keenay meesha ku baabeen qoraydana waxa weeye 700 nin bay ahaayeen 700 bas wax la dirdiray baa hal nin baa ka fakaday baa sidaas marka u baabeen ilaahay baa u saaray marka dilinimo iyo maaragtay maskana kufriga ay sameeyeen jireen dadkiina dagaalada hadda casriga xataa waxa weeye mid dagaalkii adduunka ee labaad marka laga sheekeynayo Hitler waxa la yiraahdaa dad aad u badan malaayiin ayuu ka laayay iyo wax tawaasha kale 6 milyan laga dilay marka sidaas waxa weeye ilaahay wuxuu saaray markasta maaragtay dad maaragtay yani gaarsiyo maaragtay yani cadaab wala cadaab dhilaysiinay marka dambiga hadii dadku isiyaan sameeyaan oo dadku maaragtay caado noqdo oo intidaab caado noqdo waxa imaanaysa marka dambe kufriga weynaa in la sameeyo kufriga weynaa hadii mar la sameeyo ilaahay dadka waa nacaya waxa weeye ilaahay ka bedel qaadanaya oo aduleynaya adduunka aakhirada ku duleeyay ka noqonaya idanka waxa weeye waxa loo leeyahay khudwaad idanka raacina waa sidaas qofka hadduu shaqo badan yahay dadaal badan yahay xataa wuxuu ku bilaabayaa inuu bal waxyaabaha sunnooyinka iska daayo salaatuleylka iyo sunanka kale iyo bal iska daayo iyo amraya oo uu yeeraya markuu iska daayo haddana waajibadii uu soo dhiganaya marka dambena gaalnimadii shirkii gaaladii in la raaco ayuu yeeraya marka haddii tallaabooyinkiisa la raaco sidaasa loo lumayama xadiis baa wuxuu leeyahay shaydaanku wuxuu yidhi maaragtay bani aadam waxa ku baabiiyey ku halaagay waa shirk waxay uga badbaadeen uga baxeen waa laa ilaaha illa allah markaasa waxaan ku tuuray bilmacaasi dambiyo markaad waxay uga badbaadeen diir hadana istighfar iyo tawba uga badbaadeen marka waxa ku ridaa jir ahwaa hadana markii kabaayirtii jeli weydo maartay dambiyadii ay ka baxaan oo shirki ka baxaan oo dadku soo noqdaan oo meel ka soo gala waayo wuxuu yiraahdaa wax idin ka wanaagsan malaha ilaahay waa ka raali noqday buu hadana u akhriyaa oo idinku mustaqim baakiina waliyo ilaahay baa tigid markaas ay dambaada hayaan oo ay istighfarteen garin istighfarki ilaahay si dambaada bay istighfarteen hayaan meel baa waxay ku qorteen idinku ilaahay ka raali noqday saasay marka dambiyada hadana ugu soo noqonayaan si rabay marka isagoo mar walba wadleesha ugu dhow qofka uu ka luminayo inna alladheena aamanu walladheena haadu wan nasara wasabiin Allah subhanahu wa ta'ala ayadana dadka kala duwan oo kala aqaayidka oo tirada badan kulligood haday isugu yimaadaan islaamka oo Allah kaliya waxidaan oo aakhirada rumeeyaan amal saalix sameeyaan kulligoodna liibaanayaan billahi subhanahu wa ta'ala inna alladheena aamanu ku Allah rumeeyay muwaxidiinta oo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam dacwadii ugu yeeray oo tawfiiqta ay ajiibay iyo walladheena haadu kuwa yahuudoobay oo haadu magaca ugu baxay baa yiri yahuuda waa hadalkii ahaa inna hudna ilayka Allah adiga ku soo noqonay hadalkii ahaa ay yiraahdeen waxa kale la yiraahdaa waxa weeye wiil baa la oran jiray yahuuda oo awlaad Yacquub kamid ah oo duxiyo badan lahaa kaa marka dartii kaa maana baa lagu magac daray waa la yiraahdaa marka kuwa yahuuda ah kuwa Allah rumeeyay iyo kuwa yahuudoobay iyo wan nasarana nasarana waxa la magacooda ku soo jeeda magaaladii qaryadii Shaam ku taalay oo Naasira la oran jiray oo Nabi Ciise uu joogi jiray alayhi salaam halka waxa la magac halka ku yimid marka nasara wasabiina iyo kuwa sabiinta sabiintaas waxa weeyaan iyaga waa qoom aan ahayn yahuud iyo nasara midna diinta Nabi Ibrahim sheegay la ilaaha illa Allah oran jiray waa la yiraahdaa laakiin Nabi Muhammad rumayn sallallahu alayhi wasallam waxa kale la yiraahdaa sabiintu waa qoom xadigaha aabin jiray luqada carabiga asal ahaan sabaa waxa weeye qofka diintiisa ka baxay diinta loo galay ila la leeyahay diinta ka baxda waxa loo yaqaan carabta sahabi inuu yahay asxaabtii nabiga sallallahu alayhi wasallam bay subaah oran jireen marka Umar bin Khadaab islaamay waa tii ninkii yiraahdaa in Umar bin Khadaab sabaa diintiisa ka baxay marka ummadaha kala duwan buu Allah yiri subhanahu wa ta'ala kulligood man aamana billahi yani idii rumaysada la yiri Allah oo wixida wal yawmil aakhir maalinta aakhirana rumaysa وعمل صالحا عمل صالح سبحانه فلهم وحأصبنا إذا أجر كذي إليهم عند ربهم فبقدت ولا خوف عليهم عبسنا كركب أهانيسو ولا هم يحزنون ما يمرقونيه مركز دكي هراء يهود أهالي ولكن كتاب في نبي موسى وتوراة كتاب في نبي موسى عليه السلام كفرنا وكتاب كتبنا وحوي وضد بالداوي لأهانها يعني ونبي محمد سوء جارين صلى الله عليه وسلم دكي معناها كتاب في النبي عيسى الله من الإنجيل كفرنا ونبي محمد سوء جارين صلى الله عليه وسلم ويوه توسر بنتنا سوانا وحوي وبالداوي هيان واللبان هي لكن عد والباء ونبي محمد صلى الله عليه وسلم سوء جارتي وعن همين إلا كان من أهل النار بحديثة تجري مار في أهل النار بنوانا يا إذا لا عد المقسم من محمد صلى الله عليه وسلم إلا سوء جري
ومركا آن راعين أو رمين يعني ومركا ساعة هذه وأهلنا إذا الله إدى سميسا أو راعدنا أو توفيد الإسلام كله قاسنا أما اليهود كلماته أما النصارى كلماته أما الصابئين كلماته أما المجوس كلماته إذا الله إدى معرفة حق راعده ودعوة الإسلام الأجيسة وحيليهم الأجر فيه عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أمرون أهان مثالي كركوز. إعداد وتركيب الصور الفقير إلى الله أكرم عبد الفتاح علي. فما أغضأت فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله وشيخ البرهان.